soo dhawaad saaxiibayaal mar kale iyo muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay garoonka kooxda kubadda cagta ee Liverpool laguna magacaabo Anfield. Muuqaalka waxaa kaga boganeysaan dhammaan qaybaha garoonka haddii ahaato qolka labiska ciyaartoyda, qolka shir saxaafadeedka sida marka coachka wareysi bixinayo kale ama ciyaartoyda la wareysanayo. waxaad kale muuqaalka ku arki doontaan koobabka ay qaadeen Liverpool, sidoo kale makhaayadaha garoonka dhex yaala ay isticmaalaan ciyaartoyda iyo dad kale intaba, iyo ugu dambeyntii aan isla arki doono tarabuunka qaybaha ciyaartoyda fariistaan iyo qaybaha dadka taageerayaasha ay fariistaan. haddaba safarka muuqaalkeena saaxiibayaal halkan ayuu ka bilaabanayaa, waa magaalada Liverpool santarkeeda. markii aad halkan joogtid garoonka Liverpool wuxuu ku jiraa qiyaastii 15 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo oo bas ah. aniga hadda baskana qaadanayaa meel kale u socdaa, laakiinse Anfield buu sii marayaa, via Anfield baa ku taala saashashada ka arki kartaan. ugu dambeyntii baska saaxiibayaal waa soo raacay, wuxuu ila soo socdaba wuxuu ila soo gaaray garoonka kooxda Liverpool. garoonka markii la soo gaaro wajahada u horeysa oo kusoo qabanaysa wuxuu u egtahay sida tan. gidaarkaas u jeedaan waxaa ku xardhan koobabkii ku guuleystay kooxda. hadda waxaan joognaa banaanka garoonka, waxaan rabnaa garoon gudihiisa inaan galno, marka waxaan ka galaynaa iridaas ay ku taalo Stadium Tour. gudaha markaa soo galnay kadib qaybta xafiiskaas u jeedaan reception-ka ah baa wuxuu jeekimiyaa tigidhka aan haysano maadaama online ka gadanay inuu active yahay in kale. sidoo kale xafiiska waxaa lagaa siinayaa telefoonkaas u jeedaan oo audio aad ka dhageysanaysid oo guide oo ku hagaya. intaa kadib waxay noqotay qaybta gudaha inaan usoo gudubno. meel dhexe waxaan kula sii kulmay boorkan ee ku yaala club tababari hore kooxda iyo midka cusub. waxaa soo socdaba waxaan soo gaaray fikti u sareysay garoonka ama qaybaha sare ee garoonka kooxda Liverpool. aragti ahaan markii la joogo kuraasta u sareysa garoonka kooxda wuxuu u muuqanayaa sidaas. dhammaan waxaa kuu suurtagelaysa inaad aragtid qayb kasta oo ka mid a garoonka. intaa kadib waxaan isku dayay inaan u gudbo qaybaha hoose ee garoonka. waxaan sii maray oo isheedu qabatay makhaayaddan oo ka mid a makhaayadaha garoonka laguna talagalay inay ka adeegtaan taageerayaasha. kadibna waxaa xigay qolka labiska ciyaartoyda. mid kasta oo ka mid a ciyaartoyda wuxuu leeyahay khaanad uu gashto alaabtiisa ama waxyaabihiisa staafka ah. sida hadda muuqaalka ka arki kartaan waxaa ka muuqda dhammaan ciyaartoydii kooxda weliba safka koobaad ahayd. waxa iyana aan ka fogeyn makhaayadda isticmaalaan ciyaartoyda markii xaafkaan biyo ciyaarta dhacdo kale halkaan bay usoo makhaayad tagaan. sidoo kale qolkaan arkaysaa waa qolalka shir saxaafadeedka coachka ama ciyaartoyda ay ku qabtaan. waxaan soo gaarnay meesha ay ciyaartoyda kasoo galaan garoonka. intaa kadib markaa garoonka soo dhex istaagtid gaar ahaan qaybihiisa hoose wuxuu u muuqanayaa sida tan. garoonka wuxuu leeyahay saaxiibayaal qayb muusiyama oo lagu keydsho taariikhda kooxda. waxaan u gudbaynaa qaybtaas hadda. waxyaabihii u horreeyay isheeda qabteen waxaa ka mid ahaa fanaanadaha kooxda ay ku dheeli jireen kalarka ay lahaan jireen. sidoo kale waxaa yaala koobabkii champion-ka ay ku guuleystay kooxda Liverpool. qof ka mid a shaqaalihii meesha ka shaqeynaya aan weydiiyey koobabka inay sax yihiin in kale, wuxuu ii sheegay inay yihiin kuwii saxda ahaa. ugu dambeyn muuqaalkeena saaxiibayaal intaasuu ku egyahay. waxaa kaa rajeynaa mar haddii halkan aad soo gaartay inaad like iyo subscribe nagu taageerid.